War degdeg ah. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray warbixintii la wada sugayay ee ahayd shirkii jaraa'id ee uu qabtay oo uga hadli rabay arrinta duqeynta ay ka geysatay Iran dalka Ciraaq ee saldhigyada ugu yaala dowladani Mareykanka ee kala ah Aynul Asad iyo Arbil. Madaxweyne Trump ayaa si guud u sheegay inay Iran nasiib leedahay maadaama uusan qof Mareykan ah ku dhimanin duqeymihii gantaalada ee ay Iran ku weerartay. Isagoo warbaahinta la hadlayay si toos ahna looga baahinay warbaahinta la iska arko ayuu sheegay in hadda ay Iran dib u guratay maadaama ay beegsatay saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq. Wuxuu sheegay in dowladdiisa ay cunaqabateyn hor leh ay dul dhigi doonto Iran isagoo jawaabo la taaban kara aanan ka bixinin maadaama laga warsugayay warbixinta jawaabtii uu ka bixin lahaa ee